macallin dugsiyaan ahaa intaanan noqonin macallinka iskuulka markan xildhibaannimada ku soo biirayay waxaan ka shaqaynayay hay'ad oo aan anagoo waliba xildhibaan ah kadib aan istiqaaladeeda geeyay laakiin waxa iigu horeysay aniga magaaladan Muqdisho hal maalin kama aanan bixin maalinkan ku dhashay ilaa iyo intaan aan ku soo dhamaado ayadan wax ku dhaxbartay ayadan mas'uul ku dhax noqday waxaan ka soo shaqayn jiray oo aan shaqadeedii ugu horeysay ku bilaabay oo ama ani dhidid aan shaqaysta aan ku bilaabay macallin 6 sano ayaan waxaan macallin ka ahaa iskuul almasal la dhaho ardaydii aan wax soo baray maanta qaarkood ama xafiisyada iiga hor imaadaan ama meel kasta oo aan tago wasaaradaha anigoon aqoonin xitaa ay dhahaan macallin mana taqaanaa mana xasuusan karo mana garan karo waxaan ahaa 6 sanaan macallin ahaa 2 sano oo kaleetana waxaan ahaa maamulo iskuul Sheikh Abdi Samad Commercial Secondary School dhahaaya ayaan waxaan ka ahaa maamulo iskuul 7 sano ama 8 sano waxaan ku soo qaatay bahda waxbarashada taasaa keentay inaan yacni aan arrimaha bulshada up to now aan ka shaqeeyo oo wasaaradda waxbarashada aan xiriir la lahaado oo ah inaan ayada oversight kareeyo waayo waxaan dareemi karaa dhibaatadii waagan ardayga ahaa aniga i haysatay ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeedna haysan karta dabcan anigana macallin aad u adagaan ahaa waxaan xasuustaa arday jeego u jaran tahay galaaskayga ma soo gali jirin gabar goonna gaaban wadatana galaaskayga gabar goonna gaaban wadatana galaaskayga ma soo gali jirin waxyaabaha ay ardayda igu dhibsadeen ay ka mid tahay intaas waxa iigu horeysay macallin dugsiyaan ahaa intaanan noqonin macallinka iskuulka waxaan xasuustaa mararka qaarkood oo aan la yaabaa xaafadan deganahay ayaan macallinka dugsiga ilmaha meel dhaadheer ee mararka qaarkood uga imaadaan ardayda qaar ka mid ah ayaa waxay yihiin familada ama dadka qoryaha haysto awoodda meesha ku leh hooyada iyo islaamo kala isla socdo oo meel aadayo isbaara loo dhigtaa hooyada isbaarada looma dhigto waxa la dhahaa macallin aamino hooyadeed waay lagama qaato heer marka waxay gaartay islaamaha markay soo baxayaan hooyada ay alaabtii oo dhan ay u dhiibtaan iyo lacagihii oo dhan waxyaabaha marka oo aan la yaabay oo aan dalkan kala soo kulmay isbaaruu dhiganaya haddana wuu igu tixgelinaya inaan macallinkiisii ahay ama aniga hooyada ay tahay oo macallimadiisii aan ahay 92-93 ga ahayd ilaa iyo 94kii wallaahi markaas baahi badanaa jirtay wiil miyaa mise gabar miyaa lama dhihi jirin waxaana ognahay dadkeena Soomaaliyeed canuga marka uu dhasho waxa ugu horeeyooba lagu bilaabo canuga markuu 4 sano 5 sano gaaro waa dugsiga Quraanka marka waxay la ahayd wax yacni ay u baahan yihiin ayaga xilligaas waxa lagu jiray xilli aad u adag iskuulka dugsiga waalidka cunuga guri dugsi ka fog ma geey karin dugsiga u dhow geysana marka wuxuu ku qasban yahay dugsigan gabara joogta ma dhahaaye dugsi meesha ku yaala wax ma laga dhigaaya ayaa muhiimadooda ahayd marka waana joogan ciyaal badan oo aan soo quraan baray waliba laga yaabo hadda in ay yacni fiirsanayaan idaawanayaan oo aan quraanka soo baray alxamdulillah waa ilaahana ku mahadsan ka sokowna waalidkii i barbaariyay heerkan i soo gaarsiiyay quraanka i xifdisiiyay igu dadaalay ayaa mahadaas iskale waxaan ka dhex shaqayn jirnay annagoo arday ah sidii dalkan horumar lagu gaarsiin lahaa sidii dalkan uu dhibaatada uga bixi lahaa sidii dalkaanayti ama ardayda naga dambaysa ay ku heli lahaayeen waxbarashada annaga helna waxbarasho ka fiican waayo waxaan ognahay dadkii naga horeeyay 91kii wixii ka horeeyay wax bartay intuusan dalka burburin waxay wax ku soo barteen meel aad u qurux badan waxay ku soo wax barteen meel nabad ah waxay wax ku soo barteen waxbarasho isugu jirta lacag la'aan oo welina quality leh intaba ma aanan helin annaga dhibaato iyo burbur iyo dagaal aan wax ku soo dhax baranay waxaan ka shaqaynayna marka annagoo oo team dhalinyaro ah in aan waxaan ka baxno sidaan uga bixi karnana ay tahay dadku dawladda ku filanay in dawlad la helo taasaa keentay inaan xildhibaannimo raadiyo taasaa keentay inaan siyaasadda aan u dhondoloolo oo aan ka raadiyo meel laga soo geli karo meesha maanta aan ku noolahay meel ka qiimo badan ka qurux badan ka wanaagsan oo aan ku noolaan lahaa ma jirto meeshaan aan dooran lahaa oo maanta aan ku noolahay cimrigayga yacni hadda inta aan soo dhaafayna aan ku noolaa marka soo bedelna ma rabo in meel kale la ii bedelo ma rabo marka intaan dooran lahaa Soomaaliya aan dooran lahaa magaalada Muqdisho aan dooran lahaa